بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ka hadlaynaa arin ay maanta meel kaga dhawaaqay adeecad la yiraahdo Universal ninka la yiraahdo Cawke ee wariyaha Soomaaliya ahaan jiray BBC da ahaan jiray VOA-gana ka ahaan jiray dhawaana waxaan maqlay in Universal TV uu ka ahaa oo laga eriyay arinkan daraadeed waxaan gaar ahaan aan rabaa inaan ugu jawaabo Cawke hadaladii ka dhacay iyo aflagaadadii uu geystay shacabka reer Djibouti Cawke walaalayaal waxaan doonayaa inaan iraahdo Cawke gaar ahaan Cawke meel aad joogtidba waxaan jecelahay inaan arxagan kaaga jawaabo waagi dhaweytay markii lagu wareystay waxa aad ka hadashay dalka Djibouti iyo siyaasadiisa iyo shacabka Djibouti ta ugu horeysa waxaad ka hadashay haddaan soo qaato dadka reer Djibouti baa tiri kitaabka xagaaba la iska dhigaa marka la rabo yaa la soo qaata Cawke waxaad ogsoonataa dadka reer Djibouti waa qoomiyad ilaa 1 milyan in ku dhawaad ah halkaan milyan waa dad islaana waa dad muslina weligoodba diinta islaamkana amisna rasuulkana alayhi salaatu wasalaam ilaahay uu noo soo dirayna raacsanaa afarta qof ee la kulantay adigu hadda dadka reer Djibouti oo ku dabaqaysid waa arin aad iyo aad u falxun khaasan adigu oo 40 sano iyo dheeraad ah nin aha imikana ah wariye ah marka wariyuhu waxyaalo badan buu leeyahay inuu ixtiraamo sharciyo badan buu leeyahay in aflagaadada dadoo dhan la isku wada daro waxa soo dhan yuu leeyahay marka xagga ay ka martay ma garanay marka haddaan u laabto intii kale ee raacisay waxaad ka hadashay saddexda ka waxaad tiri kaneeco kulayl iyo koraali waa runtaado dhibaatadaas oo dhan dalka reer Djibouti jalka Djibouti maanta way jirtaa laakiin waxaan isweydiiyay Ismaaciil Umar Geele dalka wuxuu madaxweyne ka noqday 1999 ilaa imika saddexdan sano ilaa imika way jirtay sidaa sheegtay laba waa caado Ilaahay uu keenay kaneecada iyo kulaylka kooraalida dhibaatadaas way jirtaa shacabka reer Djibouti way haysataa laakiin su'aasheedu waxa weeye maxaa maanta keenay oo maxaa maanta soo beeray 99 ilaa imika kolle BBC dad u shaqeyn jirtay kolle VOA baa u shaqeyn jirtay kollana anigu iyo dadkan weydiiyayba soo jawaabteedu waxay waqti u qaadatay baaritaan baan waday inaad waxyaalaha mar hore adigu dhaleeshay ama ugu dhalaacayay dawladda Djibouti wax war ma hayno laakiin waxaan isweydiiyay maanta maxaa soo beeray waxaas aanu ka jeclaan lahaa kulaylka iyo kaneecada iyo kooraalida Djibouti maanta hawl badan oo waxa jirta dadka shacabka Soomaaliyeed ay dhibaato haysato macluun badan haysato taa inta aad sidii loogu hortagi lahaa aad qaadan lahayd baad gaadhay inaad tari aad ku dabaqdid hase ahaato taariikhdaada marka dib ugu laabano Cawke waxaad ahayd ninkii madaxweynaha Siyaad Barre afayeenkiisa ahaan jiray gaar ahaan guriga madaxtooyada ee Soomaaliya wariyayga ahaan jirtay sideetanadii inta u dambeysay Muqdisho koraanku guguy jiray korontadu way guuy jireen weligaas lagu ma hayo adigoo u damqaday shacabkii reer Muqdisho marka waxaan isweydiiyay damiirka maanta ku taabtay shacabka reer Djibouti muxuu kugu taaban waayay markii Hargeysa diyaaradaha la dhacay ay dawladii Maxamed Siyaad Barre ay diyaaradda la dhacayeen Hargeysa maxaad ugu damqab weyday kamaal hadlin waa adigii jaalasiyaad weligaaba jir oran jiray dhalinyarta imika 20 jir ah waxa laga yaabaa inay taariikhdeeda ay garanayeen laakiin anagu taariikhdaada waan naqaanaa taariikhdaadu
mar walba meeshuu dhuniga uu ku jiro inaad raacdid mar walba meesha aad adigu dan ka helaysid inaad bulshada weyn aad ka dooratid marka ani waxaa ila cajaa'ib noqday ma wax rabbaaniyaa soo biiray baa yidhi cawke ilaahay subxaana wa tacaala wuu joogaayo qofka biniaadanka qalbigiisa uu bedeli karaa waxaan is idhi anigu cawke ma ilaahay subxaana wa tacaala nuur ilaah baa u yimid oo qalbigiisii bedelay waayo laguma ogeyn ficil uu dad u ficiltamo haddaad cid u ficiltami lahayd hargeysa dayaarad baa lala dhacayay marna kamaan hadal laakiin waktiga maanta anu waxaa isweydiiyey ujeeddada reer jabuuti inaad ku aflagaadaysid maxay tahay maxaanad ka rabtaa ma mashruuc kalaad soo wadataa oo isticmaal baad leedahay shacabka reer jabuuti waxaanse kugu soo gabagabeynayaa oo jecelahay inaad xasuusatid shacabka reer jabuuti waxaan weydiisanayaa in dib dambe haddii universal t v aada ugu soo laabatid inayna daawan telefishinkaas adeecaddaa iminkana ballan anigu waxaan ku qaadayaa haddaad dib ugu soo laabatid waxaanan maqalay inay dib rabaan inay kugu soo celiyaan waayo waxay ogaadeen shacabka reer jabuuti malaha inay dareen lahayn dib dambe uma daawanayo universal t v shacabka reer jabuutina waxaan ka codsanayaa meel ay joogaan gaar ahaan kuwa jabuuti jooga hadday ninkaas soo celiyaan universal t v ha daawanina dalka jabuutina waa inay ka baxaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.